assalaamu calaykum. magacayga waa maxamed yuusuf, waxaan ahay takhtar ku nool dalka ingiriiska. taladan waxay qusaysaa weerar aashito ama kiimiko sidaad iskaga ilaalin lahayd. taladan waxay ka hadlaysaa aashita laga helo dalka ingiriiska, waxaana soo diyaashay takhaatiir. taladan ma bedelayso talada takhaatiirta gargaarka ay ku siiyaan. taxadar, albaabkaada iyo dalashadaada mar walba ha ku xirnaadaan. mar walbo dhalo weyn oo biyo nadiif ah gaariga ha kugu jiro. si gaara uga taxadar markaa keligaa socotid ama aad joogtid meel cidlo ama mugdi ah. raadso gargaar. u yeero gargaar, waxaadna raadsataa meel ammaan ah. u qaado inuu yahay weerar aashito xataa haddii aad isla markaas wax dareemin. waqti bay qaadataa intaadan xanuunka dareemin. waxaad qaraacdaa 999 adigoo u sheegaysid inaad tahay dhaawac la gaarsiiyey weerar aashito. ka hortag dhaawac weyn inuu kusii gaaro. biyo si degdeg ah biyo ugu dhaq dhaawaca meel walba uu kaa gaaray. biyo aad u badan oo aan kala joogsi lahayn, ugu yaraan 20 daqiiqo ama intuu kaaga imaanayo gargaar caafimaad. iska siib dharka ku aadan meelaha uu kaa gaaray dhaawaca adiga oo ka reebeen xijaabkaada, ookiyaalahaada iyo wax kasta oo aad xiran tahay sida dahabkaada. ha isticmaalin waxaan biyo ahayn sida kareeme ama vaasaliin. ha saarin maro, hana xoqin. haddii uu yahay weerarku mid aan qoyanayn, si wanaagsan iskaga jaf intaadan biyo ku dhaqin. booliis, markaad meel ammaan joogtid oo gargaarka caafimaadka kula joogaan, gaarsii warbixinta dhaawacaada booliiska iyo ururada ilaaliyo weerarada naceebka. fadlan intaan xasuuso, haddii aad aragtid qof la weeraray, isku day inaad raacdid talooyinkan, iskana ilaalisid inaad taabatid aashitada markaa biyo ku shubaysid dhaawaca. mar walbo qaraac 999 ambulanska baa geenayo dhaawaca meel ku habboon. mar waxay noqon kartaa meel aan kuu dhoweyn. muhiim maaha inaad raadisid aashitada wuxuu yahay. ku dadaal si degdeg ah biyo badan oo aan kala joogsi lahayn inaa ugu shubtid dhaawaca. sidaas baa saameynta dhaawaca u yareyn kartaa. fadlan u dir fariintan asxaabtaada iyo qaraabahaada sidaan u gaarsiino dad badan.